ما شاء الله قيبت قيبت الكتروني حسن شيخ madaxweynaha dhammaantiin wadana hadli doonaa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya ma aha Soomaalida Kenyaanka ma aha Soomaalida Soomaaliya ka timid ama Soomaalidii Soomaaliya ka timid ha ahaadaan wali ama muxuu ahaay ha qaateen dhalashadii iyo maxaan ku yiraahdaa iyo Kenyaanimadii Soomaalida waxaan leeyahay wadankan iyo dawladdiisa iyo dadkiisa abaal aad iyo aad u weyn ayay nagu leeyihiin markii duruufaha adag Soomaaliya ay qabsadeen oo dadka Soomaaliyeed kii wax yar haysta meel uu ku ganacsado uu waayay wixii si yaraayo soo qaatay halkaan uu la yimid waana ka faa'iido waana ku bulaalay wax badan ayayna wixiisi u noqdeenoo waad u jeedaan muxuu ahaay hantidan maanta meesha ka muuqata hadday tahay dhismaha iyo hadday tahay dadka ku dhex ganacsanaya intaba markii dadkeenna inta nugul ay u suuroobi weyday inay dalkeenna gudihiisa ammaan ku helaan oo ay joogaan dalkeenna gudihiisa markuu ammaanka ku dhib batayna way soo baxeen halkaana yimideen boqolaal kun ayagoo ah ayaa magangelyo la siiyey nabad ku noolaada waxbarasho aqoon maxaan ku yidhahdaa wixii adeeg bulshada u baahnaayeen oo dhan iyo ammaan ayay dalkan ku heleen waa ku ilmo dhaleen ilmihii la dhalay ayaa sii ilmo dhalay oo maxaan ku yidhaahdaa ku sii ilmo dhalay halkan kan ma shaqaynayo ilmihii ku dhashay magangelyadaas iyo xeryaha muxuu ahay qaxootiga ayaa ilmo sii dhalay marka 3 generation in ka badan ayaa meeshaan isugu timiday marka abaal ay nagu leeyihiin dadkaasoo intaas meel kasta lagama helayn intaasoo dhan marka generationska intaa la eegan meeshaan wax ku bartay ee ku dhashay qaarkood Soomaaliya aanay arag laakiin Soomaali haddana ah ayaa jooga oo hadda dalkiina noogu yimiday ayagoo aqoon leh dhaqaatiir ah injineer ah maxaan ku raayay wax walba leh ayaa maanta dawladda Soomaaliya u shaqeyn dawladdiska Soomaaliya ay ka qayb qaataan dalkan marka wanaaggaas uu noo galay badiilkiisa inaan lacag siina noogama baahan inaan ciidan u keennoon amnigiinaan sugaynaan niraana noogama baahan ayagaaba amnigeena wax ka sugan hal wax ayay nooga baahan yihiin hal wax oo aad iyo aad muhiima ayay nooga baahan yihiin oo abaalgud u noqon kara abaalka weyn ay geysteen hal si ayaan ugu gudi karnaa oo weyn siyaabo badanaa jiro laakiin mida waa maxay inaan ilaalino qawaaniinta dalkan uu leeyahay inaan ilaalino dhaqanka ay dadkan leeyihiin oo aanan dhaqankooda iyo qawaaniintooda iyo habnololeedkooda aan mar walba ixtiraamno oo aanan muxuu ahaay aanan wax ka sheegin dalkaani qawaaniinta uu leeyahay waaye midda aad ku badbaadeen oo aad ku bulaasheen sidaas daraaddeed qaanuunka dalkan u deggan aan ilaalinno waa abaalgudka ugu fiican oo aan sii karno intaa kadib aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin macallin muxuu ahaayey weli iyo raggiisa fikirka keenay ee maalgeliyey ee quruxdan ka soo saaray moolkaani yacni wuxuu meesha ku oolayaa haddii ilaahay uu nabad keeno qarniyaaluu meesha ku oolayaa bas hal midaa cawada meesha ka raacayso macallin weli sida haddaatay muniirna uu sheegay kanoo kalaa laga rabaa Soomaaliya inay ka dhisaan isaga BBS 2 kan waa 1 2 ayaa laga rabaa
soomaaliya inay keenaan dowladda soomaaliyana inay soo dhowayso ay u fududayso oo ayna muxuu ahay difaacdo maalgashigaas dalka soomaaliya markii ugu horraysa qawaaniin la yidhaahdo investment protection law oo ilaalinaysa oo xifdiyaysa oo difaacaysa wixii maalgashi ah oo dalkaas la keena ayay leedahay qawaaniinta noo sababtay waaye in dayn cafintiina la siiyo oo hay-adaheenna muxuu ahay dhaqaalahan caalamku u aqoonsaday ka mid tahay kuwiyo u badanaa dowladdu ay samaysay sidaas daraaddeed mar kale iyo mar kale waxaan hambalyaynayaa macallin weli iyo tiimkiisa